شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا ولا ليال بشا بركيسا إنك عافماد هينا ونودينا هينا إلها نسو قارسيي بانكم مهدنينا waa inay nicmadaasi qalbigeenna ku weynaato adoo beled aamina joogo waddankaagii aamin uu yahay jirhkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wacalaa bisha rabadaan ku soo gaadhsiiyey waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kal hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaana way ka intiqaaleen dad badan baa kal hore iyakoo caafimaad qabuu rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxaa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan marka waa inaa nicmadaasi ay qalbigeenna ku weynaato ilaahay baa le wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi haddaad damacdaan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan baa ilaahay yidhi runtiina waa bil aada u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumca jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo maaragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid waa kii lahaa maalmihiina ay nagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maalinta jumcada 5 khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khasladda koobaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray maalin jimce ayaa jannadana la geliyey maalin jimce ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yihi saacatulijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nebigu yihi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jimce waa nicam weyn weeyaan ilaahay inaan ugu mahadino weeyaan habeenkii ugu horreysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kahratu lkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaya dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaaiinna waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha keliya ilaahay jalla wacalaa qur-aanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan waa bisha maaragtaane la yidhi waa bishii qur'aankuna uu soo degay
waa bisha keliya ee nebigeennu uu yidhi habeen kasta oo bisha rabadaan ka mida buu nebigu yihi waxa uu ilaahay leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha keliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkeyga bisha rabadaan fadligay leedahay waa bisha keliya ee nebigu uu yidhi maradatu shayaadiinna waa laga xidhaa bani aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee qur-aanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yidhi innaa anzalnaahu fii leylati اlqadr tobanka dambana allah ina gaadhsiiye waa bil aada u barakaysan oo xurmaddeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani الsawmu junna soonku waxau nebigu ku sheegay fadaa'ilkiisa kadalika inuu yahay gaashaan الsawmu lii wa ana أجزي bihi ilaahayna waa kii lahaa xadiis alqudsi soonka aniga ayaa iskale anigaana addoonkayga ka abaalmarin doona waa bisha uu nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam uu yidhi saa'imku intuunan afurin waxa uu leeyahay duco la aqbalo waa marka acdaaddu ay sii dhacayso eed afurka u diyaar garoobayso xilligaa ducada waa la aqbalaayo baahidaada ilaahay u sheego soonku waa gaashaan الsawmu junna naartuu gaashaan kaaga noqonaya shahawaadkii nafta ayuu gaashaan kaaga noqonaya macaasida ayuu gaashaan kaaga noqonaya xanuunada dakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayay bisha rabadaani ay daweysaa bal dhakhtarada waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku odhanayaan bisha rabadaan baan ugu shaqo yarnahay nin docteera oo maalin ka hadlaaya ayaa yidhi bishii caafimaadkaa timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yidhi wuxuu yidhi bishaa cid noo timaada maba aragnay buu yidhi dadka bukaanku way yaraadaan waa bishii caafimaadka waa bishii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhowaanayey waa bishii dembi dhaafka man saama rabadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi bishaa ninka sooma buu nebigu leeyahay maalin kasta oo bishaa ka mida ninka sooma buu nebigu leeyahay dembigiisii hore o dhan waa loo dhaafaya man saama rabadaan bishaa rabadaan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkani inuu yahay amar alle xaggiisa ka yimiday ixtisaabna waa maxay ajarka iyo hawaabkana ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaalmariyo dembigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam man qaama rabadaan iimaanan واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi ninka bisha rabadaan salaad taraawiixda u kaca buu nebigu leeyahay calayhi الsalaaةu wasalaam isagoo ilaahay ku kalsoon oo iimaan qaba واxtisaaban ajar iyo hawaabna ilaahay ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya ajar inuu ka siiyo cibaadada isagana dembigii horay uga dhacay oo dhan baa laga dhaafaa buu nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam waa bisha uu nebigeennu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam haddii midkiin uu afuraayo timir ha ku afuro buu nebigu yihi timir haddii uu timir uu waayana biyaha cad ha ku afuro buu rasuulku yidhi waa shareecadda islaamku waa cajiib labadaana dawaa ku jirta ogow timirta muxuu nebigu timirta u horraysiiyey waxaa la yidhi cuntada ilaahay dhulka uu ka soo saaro oo dhan mid walba fitamiiga ku jirta ayaa timirta o dhan ilaahay ku abuuray baa la yidhi hilibka fitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiiga ku jira timirta waa laga helayaa wax liya waxaa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtane nicam ilaahay bini aadanka uu siiyey cunayaan mid walba gaar ahaan fitamiiga si gaara iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyey baa ilaahay timirta inoo soo dhex geliyey timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen asxaabu muxamed salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin
markay risaalada muxamadiyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolinna faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo micdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaaga kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu ziyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa rabadan qur-aanka ay darsi jireen qur-aanka ayay akhrin jireen qur-aanka marka inakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur-aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa habeenkiina salaatalleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinaa laynaga doonaya laba meeloodba shaydaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shaydaanka ayaa dega aqalka madhanna shaydaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo oo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bishii qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakuljibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen inakuna bisha rabadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aada akhridaa si bishaa rabadaan qur-aanka mar aada u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6 maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bishaa rabadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer cuثmaan bnu cafaan radia allaahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culammadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dembeeyey xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bishaa rabadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimayay 60 jeer inaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta weliba bishan rabadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunkaa yaree adduunka lagu sheegay maanta ee dadka o dhan ka cabaadsiiye ka qaylisiiyey labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta yaa leyt sida xanuunka aan u hadal hayno haddaan ilaahay u hadal hayn lahayn oon qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeya keligay baan xasuusan addoonka jamc igu dhex xasuustana jamca uu igu dhex xasuustay jamc ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilahay yidhi xadiis alqudsi natadaakar intaad wax kale hadal haysid makhluuq intaad hadal haysid waxaad inaad hadal haysa kula quman oo kuu fiican inaad ilaahay la munaajootid saalixiinta waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaanna way dhibsanayeen markay keligood meel ay fadhiistaanna waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo keligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay qur-aankiisay akhrisanayaan qur-aanku waa kalaamki ilaahay waa mawcidadii ilaahay oo caalamka u jeediyey haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaada tukog oo qofka tukanaya ilaahay buu la munaajoonayaa haddaad doonto ilaahay inuu adiga kula hadlana qur-aankiisa kala furo qur-aanka ilaahay akhriso saxaabada radia allaahu canhum iska daa masaajidka dhexdeedee
meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaane ay dhegaysanayeen mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan oo aakhirada isxasuusiyaan oo saacadda qiyaamada isxasuusiyaan fi sunan waxau nebigeennu sheegay wuxuu sheegay imaam muslim raximahullah rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaa buu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysaan balii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankii waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa annakaa uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaa buu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10kaa calaamadoodi waa calaamaatu lkubraa ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqraa iyo kuwa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqraa laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigeenu yidhi calayhi salaatu wassalaam fadakara addukhaan waaddajaal ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وحو رسول كينو يري ساعد قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركته من علامات markaa buu nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay kama fii nasi اlqur'aan faاrtaqib yowma taأti الsamaau bidukhaanin mubiin yaksha الnaasa hada cadaabun aliim waxau nebigu sheegay qiiq samada ka imanayay buu nebigu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi الsalaatu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma taallo ilaa dajaal uu maraya dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharu ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi fadajaal fa sharu ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wasaacatu adha wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanaya aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayey dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 oo sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka o dhan wareeriyo oo la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuud illaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay maayn qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaadda maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 oo sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof walii qofkii isaga rumeeye raacana waxaa jannada u eg uu wato ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkira yidhahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin 10 ka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi الsalaam loogu waxyooday
إلهي نبي موسى وكل مناجود مقلا يا دجال مكنا مقلايو مدينة مقلايو قدسنا مقلايو أبو رسولك المسجد الأقصى الدجال مقلايو لكن شريرين ضدك الشركة بدل منافقين تا مكية مدينة دحديدة كله من يكونل أيك الدجال بنانك وقبح يا أبو رسولك يريد على مدى صدحات بالنبي يقول ودابت دولك كسوبة حيسا بورت الصفا إلى إن الصفا والمروة صخر لا بكسوبة حيسا يدنا الدية ودم بين مريسا قف كسو الدية كويا الله النبي يقول وإشابدين وحقف والبويهين وكوكر من دون تابو رسولك يريد مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كان كافر بيكو شابدين وعاكلوا النبي يقول شيء إنه إيمان يا النبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية نبي عيسى عليه السلام أيا دشينا كسو دقدون أبو رسولك يري حكما يسقو حاكما شريعة الإسلام قد يدكو حكومي دونا وعدالة فلي دونا ظلمك ما أنت أقل والبا يا مجتمع والبا ساميي وكرفع دونا صليبك قالوا أيدادان نبي عيسى لقو حلول لقو دلدلينا وجبين دونا عدالة الإسلام قد يدونا كو حكومي دونا أبو رسولك يري وعاكلوا نبي يقول شيء يا جوج وماجوج يكنا اللفوري دونا أبو رسولك يري والله بقى ضوضو كو أبتر صدا يافث بن النوح بكو أبتر سنيام ديبا وافر بقولو كن mid iyaka kamida ma dhintabaa la yidhi ilaa uu arko kun wiiloo isagu uu dhalay oo qaan gaadho dagaalka galay mooyaane ummadaani adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuj wamaajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yihi calaamadda lixaad waxaa ka mid a cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaadhin hadduu toobadkeenna buu nebigu yihi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yidhahdo qofku markaasan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cidaadu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi saddex meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yihi dhulka ayaa gu'i doona خصف في المشرق دولك عداد أي كسو بحضو ودنا دنيا ومدى دنبال لواي دونا على مدى تضباد واتاس على مدى السديدات بالنبي يقول خصف في المغرب قلبيت كأدويدنا ودنا دنيا ومدى دنبال دول كل قوي دونا على مدى السقالات بالنبي يقول خصف في جزيرة العرب جزيرة العرب رحدة دنا دول ومدى دنبال لواي دونا على مدى الطبنات بالنبي يقول ولا ليال والنار كسو بحي سعدن مقالة عدن gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaamadda ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi tobanka calaamadood baa ka soo horeeyay buu nebigu yidhi saacadda qiyaamada tobanka calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta bishani markaa waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu maaha waxaa laga soomaya baadiye biyo keliye waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto wakhtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadalqaadkiisa ka soon haddaad sheekayn qur-aanka akhriso haddaad dad u sheekayn saacadda qiyaamada ka waran haddaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekee haddaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi haddaad dadka wax u sheegi ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedh waxaa maanta adduunyada laga sheekaynaya waa waxba kama jiraan fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anaa ini xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay marka bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysanno waa bil ducada ilaahay aqbalaayo
balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahada dadkay dhibtaas soo gaadhana allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka uu hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba buu rasuulku yidhi ilaahay barya buu nebigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta ininkoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo istaqbiluu biamwaaji اlbalaa'i bاdducaa waxasinuu amwaalakum bالzakaa wadaawuu mardaakum bالsadaqa طib nabowi imaam ibn qayim raximah اllah xadiiska ayuu ku sheegay balaayooyinka dabayluhu ay wadaan buu nebigu leeyahay duca ku qaabila ducadu way weecisaa balaayada xoolihiinnana waxaad ku ilaalisaan buu nebigu leeyahay zakada haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talogelay aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqadda ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqadda ku daweeya warkayna galay markaa warkeenna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuun aan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabatu sawdaa dawaa'u min kulli daa xabasuudda buu nebigu yidhi xanuun kastoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilma tajaarub waa cilmiga tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilm alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaaءun linnaas waa casalka malabka dawaa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan mu'minka inuu gala maaha khabarka ilaahay iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaah iyo rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warkaa uu galay allah inaga dhigo bishani waa bil barakaysan markaa han ducaysano in sha allah waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwaة اdaaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacalahum yarshuduun sababu nusuulka aayadda ay ku soo degtay maxay ahayd nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi الsalaaةu wasalaam waxau yidhi yaa rasuul allah ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysaa ma mid naga dheero markaan baryayno maanu qaylinaa mise waa mid noo dhowo waan la munaajownaayo hoos baan wax ugu sheeganaa bal noo sheeg u aamusay nebigeennu calayhi الsalaaةu wasalaam deedna markaasay aayaddan qur-aanku soo degtay ilaahay uu leeyahay haddii aniga addoommahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan anigu addoonka aan u dhowahay ka i baryana baryadiisa waan ajiibi baa ilaahay yidhi ee aniga laakiin hay ajiibaan laba shardi baa lagu xidhay ducada in lagaa aqbalo imse shardi laba shardi falyastajiibuu lii ilaahay ajiib oo amarka ilaahay ilaali oo shareecadda ilaali oo diinta ilaali oo taacadda ilaali oo wixii macruufa ilaahay ku faray la kaalay wixii munkaree shareecaddu ay kaa reebtana ka reebtoom walyuuminuu bi ilaahayna rumee oo ilaahay aamin macnaheegu waa maxay alqadaa waalqadar waxa ilaahay kugu xakumayna ku raali noqo wixii ilaahay kuu qadarayna ku qanac labadaasi hadday qalbigeenna ay timaaddo waxa adduunyada la sheegay o dhan ayna saamayn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira qur-aanka si fiican u dhegayso walanabluwannakum bishayin min alkhawf wاljuuc wanaqsi min alamwaal wاlanfusi wاthamaraat maxaa ku xiga wabashir saabiriin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxu lfaraj waa sabir weeyaan addoonkuna maaha musayara waa mukhayar addoonku mukhayar maahayna waa musayar addoonku wax ma dooran kara isagu
wixii ilaahay kuu qadara adiga waa inaad ku qanacdaa. lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'igtu markay ilmaha yar ay nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'igta ku yidhaahdaa addoonkaygii ilmihiisii ruuxda ma ka soo qaabateen? haa bay yidhahdaan. addoonkaygii midhihii qalbigiisa ma soo qabateen? haa waan soo qabannay. markaasuu ilaahay yidhahdaa famaada qaala cabdi, addoonkaygii markaad ilmihiisii ruuxda ka soo qabateen muxuu yidhi bal ii sheega. markaasay yidhahdaan xamidaka wastarjaca. xamida ma macna? alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu yidhi, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi. markaasuu ilaahay yidhaahdaa maadaamuu addoonkaygii markii ilmihiisa nafta aad ka soo qabateen uu aniga ii mahadnaqay, uu isaguna xaggayga u soo noqday, ibnu licabdii beytan fi ljanna, aqal jannada uga dhisa, aqalkaana waxaad ugu magac dartaan gurigii mahadnaqa. muuminku barwaaqadana uu ka macaashaa, masiiba hadday ku dhacdana uu ka macaashaa, waa qofka muuminka. laakiin fa ilaahay tabaaraka wa tacaala iimaanka haynoo adkeeyo, amiin dhahada. bishaan ramadaanna allah haynaga aqbalo. dad walaalaheena dibadda taagan masaajidka maasha allah aad baa loo buuxiyey. in sha allah khudbaddaan iska bilaaban doona, allahna inagu anfaco. wa sala allahu calaa sayidina moxamed.